Bismillah, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeena 17aad ee ku saabsan pharmacology-ga. Waxaan kusoo jirnay antibioticska ama anti-infectiveska waxa loo yaqaano. Waxaan soo qaadanay groupka koowaad ee loo yaqaano penicillins. Penicillins waxa uu u qaybsamaa dhowr xabo. Amoxicillin iyo ampicillin ayaan soo aragnay iyo cephalosporin. Hadda waxaan arkaynaa waxa loo yaqaano penicillin G sodium. Penicillin G sodium injection wuxuu noqon karaa magacanka uu ku yahay waxay tahay benzyl penicillium ama benzyl penicillin. Trade name ahaan magaca kusoo baxaa kamid ah Cristaban, crystalline penicillin, penicillin G potassium oo oral ah. Sidoo kale injectionka oo kale benzyl penicillin arkaysaa. Trade namekiisa waxaa kamid oo kale oo marmar noqon karaa waxa loo yaqaano methicillin. Marka intaas oo dhan waa ku arki doontaa. Class ahaan group wuxuu ka tirsan yahay antibiotic waa subgroup wuxuu kasii yahay penicillin. Waxaa lagu yiri the low cost penicillin G still makes it the first choice for the treatment of many infections. Raqiiska ama qiimaha uu raqiiska ku yahay darteed ayaa penicillin G waxay ka dhigtay inuu noqdo midka koowaad ee hadda loo isticmaalo antibiotic ahaan ama anti-infection ahaan loo isticmaalo. Rapid onset makes it especially suitable for the fulminating infections destroyed by the acid penicillins. Si degdeg ah oo macnaha infectionka ay ku weerarto oo ay ku baabi'iso darteedna waxay ka dhigtay in midda koowaad laga dhigto oo la qaato iyo sida ay u burburinayso bacteria nooca loo yaqaano penicillinska iyo acidka waxyaalahaas oo dhan. Penicillin G marka waa very important waxayna u baahan tahay in la ogaado wax badan oo ku saabsan. Waxaa lagu yiri rapid IV administration may cause hypokalemia. Haddii qofka xididka laga siiyo waxyaalaha sababi karto degdeg waxaa kamid ah hypokalemia waxa loo yaqaano dhiig inuu potassium ku bato. Cardiac arrhythmia oo kale ay keeni kartaa wadnaha qofka inuu ku dhaco shock ama arrhythmia ku dhaco. Sidoo kale thrombophlebitis waxaa kamid ah waxyaalaha keeni karto in infection uu ku dhaco thrombocytosis ama thromba ama platelets ku dhaco. So assess the site of administration before administration each dose. Marka waxaa laga rabaa meel walba aad ka siinaysa inaad qiimeysid inta ka horeysa intaadan siin daawada. Use infection waxyaalaha loo isticmaalo waxaa kamid ah infections due to penicillin sensitive organisms. Waxaa kamid ah in loo isticmaalo infectionada penicillinka maadada loo yaqaano sensitive-ka ku ah macnaha ay dili karto ayadana loo isticmaalaa. MB markaan fiirino waxyaalaha gaar loo yeelay waxaa kamid ah penicillin G sodium waxaa la indicated as alternative to penicillin G sodium. Macnaha penicillin G sodium potassium waxaa lagu bedeli karaa penicillin G sodium. In those patients who intake sodium must be restricted. Qofka macnaha sodiumka ay tahay in waliba la socdo inta la siinayo aan iska wadin ama limit loo sameeyo marka lagu bedelo. Haddaan ka hadalno contraindicationka waxyaalaha laga ilaalinayo qofka daawada la siinayo waa inuusan sensitive uusan qabin xasaasiyad qofka inuusan lahayn. Dose formka ama waxyaalaha qaabka ay ku timaado badanaa waxaa kamid ah penicillin G sodium injection markay tahay vial 1 ml ay ku timaadaa oo millimole ama ay noqoto milliunit. Penicillin G sodium waxay ku imaan kartaa 1.5 iyo 10 ml intaas ku imaan kartaa oo dhiganta macnaha 1500 ilaa iyo 10 ml oo dhiganta 5 mg oo kale ama 10 mg. Dose ahaan markay tahay continuous ama IV infusion markay tahay oo kale 300 ilaa iyo 30 milliunit ay ku imaan kartaa depending on the use waxayna ku xirantahay wax loo isticmaalo. Pediatric ilmaha oo kale 100 mg ilaa 250 milliunit ay ku timaadaa. Waxaan loo siinaa dose ahaan loo qiimeynaa daily maalintaas intii loogu talagalay. Oral solution oo kale markay tahay tab ay ku timaadaa 200 ilaa 500 iyadoo sidoo kale pediatric iyadoo waxaa jirta 200 ilaa 90 unit oo maalintii la siinayo iyadoo loo kala qaybinayo. Nada ugu hor 250 mg markay tahay oral solution ay tahay ama 400 ilaa 20 markay tahay solution inay dhici karto ayadana intaas way ku imaan kartaa. Nursing concentration loo baahan yahay maxay tahay nurse-ka iska ilaaliya waxyaalaha la rabo maxay tahay oo rabo xoogga saaraan. I am preferred minimizing discomfort by the using solution of up to
IM-ka markay tahay waxaa laga barbara waa mida la doorbido sababtoo ah minimize discomfort by the use solution waxay yareynaysaa macnaha dhibaatada ay ku keeni karto qofka oo isticmaalo kalaha monitoring intake or output in lala socdo daawada qofka xilliga uu qaadanayo kale ilaa intii ka dhamaanayso lisleeyahay solution may be stored at room temperature waxaa loo baahan marka in lagu keydiyo meel room temperature hadii la qaso sida refrigerator kale la geliyo for 1 week ka badan in la keedin use 1 and 2 iodine later for IM use to decrease the pain of injection meesha macnaha injection site-ka ku sameynaysa qof markaa durayso kale inaa iodine xasuus isticmaashid waa qofka markuu rabo inuu sameeyo injectionka ama phlebotomistaha note to the penicillin G should not be mixed during inta marka la siinayo penicillin G qofka laga siinayo IV ama xididka in waxaa loo baahan yahay aan lagu qasin daawooyinkan soo socdo tusaale ahaan development drugs kamid waxaan kamid ah aminophylline gentamicin heparin vancomycin sodium bicarbonate daawooyinkaas laguma dari karo daawooyinka waa jiraan qaar la isku daro sida tusaale ahaan iyadoo kale ama penicillinka kale hadii dexamethasone waxyaalo kale lagu qaso kale problem keenayso laakiin daawooyinkan hadda aan soo sheegnay laguma qasi karo waxay keeni karaan inay sida defective ama ayaga laftigooda uu ka dhaco interaction fara badan oo problem keeni kara marka waxaa la rabaa inaan lagu qasin daawooyinkaas qaybteena penicillinka halkaas ayaan ku ekeenaynaa qaybteena penicillinka halkaas ayay nooga egtahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan qaadanaynaa qaybaha kale haddii ilaahay idmo